ma nabad baa waa nabad magaciina maqalaya masiirkiinu waa maxay Soomaaliya milgaheedii iyo masiirkeedii garato mugdigii ka hayaanto shaydaan maryooliyo munaafiqi iska naadho mustaqiinka ku taagan bay matasha iskumaan mabda lagu heshiiyo qarannimo mug weyn loo matalaya shacabka milgay iyo sharaf badan oo madaxda sare iyo maqaawiirta dhaqankiyo macal culimadeena leh oo ku midaysan maandeeq ummadda qura ku joogtay matasha iskumaan meeqaanka gobolada meel kastoo dalkeenna ah mabaadiida dawliga federaalku maamulo mawjadaha shacabka ah mawla uu ku beero miyi iyo magaalada maantadan dhex joogay muujintood u doodaa oy matashaa iskumaan waxaa mabda'eennu yahay oo aan iskumaan ku nahay inaan musuqmaasuq iyo mamnuucnaa midabta koor qabyaaladda meel dhignee shacab iyo madaxdeenna qaran midnimo loo wada guntado keena maalqabeenka iyo midkay midigtu maran tahay ee maalka faraha ugu jirin oo maatida iyo makasta leh inaan laga mashquulinoo dawladeenna mudan iyo moogaan dadweynuhu yay suugaan murtile iyo maase ku gudbisaayo matashaa iskumaan waryaa warrabo warkoodbiin warwar waa badan yahee xaggeen kaaga warranaa maxaanse kaaga warrannaa roobkii mudug iyo galgaduud ka da'ay maxaa ka soo kordho yaase war nooga haya cambaraya caasho cidu saaka waa geedi oo maxaana rabay ilaahay baaba hadda roob noo keenee roobka laftigiisaan qax kana ma roobka intii laga rabbi ka tugana ka qaxaynaa saaka oo sabab waxaan uga qaxaynaa maalmahan oo dhan geed baad hoos fadhideen ilaahu raabna si gambadood ka ruturtay ilaahu raabna si ilaahay roobku idinka aqbalay laakiin waxaad hilmaanteen inaad tirahdaan ilaahu roob khayr qabanna si ilaahu roob barwaaqaana si roobkaas hadduu rag ilaahay baryi lahaa roob nadaamsan baadi'i lahaa rag waxay ku dari lahaayeen ilaahu roob khayr qabanna si ilaahu roob lagu nagaadana si ilaahu roob aan shar wada nasiib ay dhihi lahaayeen haye ma rag baa wax laga aqbalaa waa laga aqbalaa rag waxba lagama aqbalo ilaahay baa roobka annaga noo diray haddaad idinku ilaahay noo baryi lahaydeen wallaahi ilaahay roobka waana daba marin lahaa oo maxaa dhacay ma idinke ma rajinaan dhiigga qaba wada maadharka ah oo dadkii oo dhan cidna qaxiyey oo na barakiciyey oo dawladnimada noo diidan oo badaha nagu shubay oo magaf gacanta noo geliyey oo baddayadii hadda la isku haysta iibiyey ma idinkaan war idinka dhagaysana ilaahay idiin dirsanaa ilaahay baa annaka noo diray inaan ilaahay barino calaa iyo kulli xaal warku wuxuu ku dhan yahay annagu muslim baan nahay ilaahay haddaan bari lahayn roobkana waan nasiin lahaa laakiin idinku waad barideen waana idinka aqbalay laakiin hilmaanka aad hilmaanteen qayrkii iyo wanaaggii hadda iyo dan aniga waxay la tahay dhulka webiyada hoodaadku ka dhacay oo dawladdu ay ka warhayso oo gurmadkeedu socdo maalin walba diyaaradaha iyo adduunka iyo saas laysu dabamarahayo wax aan xoolo la joogna ma jiraan aan aadno dadka garaamka aan la qaadanay war qaxi mayno ilaahayna nama qaxiyo rabbigaan baa halkaan u og dawladeeduna waa naga warqabtaa dadka masaakiinta ayagu tabaalaysan ee wabiyadu war isku kordhima mayno halkaanaasaa noo ballana halkaygaa joogaynaa cayrtowne roobka xaa soo dhacayo dhibiciba halka qof madaxiisa ka weynaa adigu idin leynaya martaba xawla ma haysta dawladdu waa noo mooga war rabbina nagu filan dawladdu noo mooga hadda maanta waxayna halkeena iska joognaa hadda iyo dan mar hadday xoolihiina dhaafeen dhulka webiyada loo daadadku ku dhufteen oo dawladdu saasay ugu gurmanayso dadka subaga iyo adduunka gacanta saa loola galay aan aadno si aan halkaas garaam ugu qaadano ugu noolaano nakeena boorsooyinka soo xiriirta war sug war guuri mayno war halkayaga rabbina nagu oga dawladeedu nooga warqabtaa ee waxaan ku leeyahay ma aqligaasad saakana nala hortin ma haddaad annaga qaxooti horliya dhul iyo dad iyo carre aanan aqoon qoorta noo surto war annagu meeshayada ilaahayna ku sugayna dawladduna nooga warqabaysaa dadka bini'aadankaas loo gurmanaayo oo maxaa daadadka qaadeen oo sidoodoo kale annagana roob noo qaado dawladduna waa ka warqabtaa meeshayadayna noogu imaanaysaa hayla dhaantana meesheenan ka dirsanayna meelna uma soconno mar haddii aad iga diideen gabdhow inaanu guurno malabkaas iyo adduunkaas ummadda Soomaaliyeed iyo dawladdu isku duuban dadka ay u gurmadeen inaan galno tirahdeen halkanaga ee dawladdu nooga warhaynaysa haddaad tirahdeen alla ilaahay marka waa inaan dawladda baaq u diray iyo ummadda Soomaaliyeed waxaanu leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan noo soo gaara sida dadkaas beerihii iyo xoolihii u dhaafeen annagana halkan hanaloogu soo gurmado hanaloo yimaado taasaanu dawladda iyo dadka Soomaaliyeed oo sharafta leh ka codsanayno sax waay halkeena noo deegaan waryaara iskumaan maanta ma ogtiin wasiirka warfaafinta wuxuu hortagay aqalka sare oo muxuu yiri wuxuu horgeeyay sharciga wax ka beddelka saxaafadda
xorta ah ee dalka ma ogtihiin ma la socotaan sidaa maya laakiin facebooka ma lagu daray weli wuxuu codsaday in la dedejiyo xeerkaas day waxaan ku warsanaa saxaafadka oo xorka oo la sheegay waxay dalkan ku haayaan oo dhib oo di og tihiin facebook ma aragtaan horta facebook maya facebook kuwaana dawlad rabaan hataa ma isdhehaysid waxa ay sheegayaan le xoraa tihiinaa la yidhi wixii rabaan may sheegayaan war sug ma hadda dimuqraadiyadii faraha la soo gasho war facebook waa dimuqraadiyad waan saxaafad madax bannaan waa madax bannaan tahay marka macnaha wax ma reebanayso miya waraa unka anoo celinina meeshii laga yimid ya hadda dhibaan ka nimid hadda dhib waa ka nimid dawla haddaan haysanaa dadkaanna dawla ma rabaan saxaafad xoraa tihiin haddii nugu sii dhahdiinna inkaar kalaa imaanaysa waxay aniga ila tahay facebook waa virus waa cudur maraykanka waxaa maqli jira yidhaahdo hubka nuclearka looma ogolo cid aan maamuli karin oo ka hor istaago anigu waxaanba qabaa in la ansixiyo facebooka soomaaliya in lagaba rookeeyo uusan soo gelin sug waxaad sheegaysaan waxba kama jiraan intaad facebooka in la curyaamiyaad u codayn lahaydeen jaadka in la codeeyo idinkaga fida inaad iska curyaamisaan taasa idinkaga fida war facebooka dad baa ku caafimaada waa isbitaal niya horta sug meehan unaka waa joogi jirnay radio muqdisho iyo telefishinka jamhuuriyadda basaa jiri hadda waxaa keentaan 156 oo radio koob wixiis raba la sheegoyaa wax unaka noo roogna ma sheegoyaan wala xaal dili wala xaal marji wala xaal qirxi wala xaal halay bas halaas lay wadaan war unaka meeshaas waa ka nimid ilaahay laga cabsado dhibkii anoo noqina heerta wareelaanahay unaka heerta wareelaanahay unaka noo xisaabtama wadaadkan wuxuu sheegay sax weey wuxuu horay waxa hadda taagan ba aad iyo aad dib noo keenay tii horaan jecelna tii hore war sax ma ahane sug ma dadkan caburinaysaa ma dimuqraadiyadda ka hor imaanaysaa waar casri cusub baa la jooga adduunyadu gadaal uma socotay horayba u socotaa dimuqraad hadduu noocaya ma warabnaba dimuqraadiga wadib wax kasta dimuqraadiga ka dhigaysid miya marka waa ka dhigaynaa federaalka fududeeyay dadku inay fasaxmaan idaacad walba gurigeeda la dhigto maxaa jiro la isku caburinaa faa'iido nin walba dee wuxuu asagu fahmaa u faa'iide يا أخي صار كلهم كخبنا يا أخي لب واي دولة أنا قدوم مننا يا أخي شيخو هذيك راديو أو يعني هذا كان موسك كان أو بربروني كان أو بسش كان أو وركاس نلا لو باي راديو والبا إلا هلوا waxaan qabaa facebook waa fidno baarlamaanka qodob ka soo saara sharci ah xukuumadda ku raacdo hal ansixiyo hal laga xiro dalka waa virus idaacadaha yaacayo xeerkaas waxa weeyaan qofka ugu horeeyo taageerayaanahay ma ku raacdeen ku raacnay anna waxaan iri fidno weeye facebook farahana kala bax war radio muqdisho iyo TV-ga waa lahayn TV-yadan kale farada badan ee laga calaacalayo idaacadaha kan balaayadan soo burqanayso dadka waalan ay ka soo qaylinayaan oo nabadda iyo horumarka iyo dawladnimada lagu diidayo qof kasto waa cid ka controleysa iyo cid xajinaysa aan la arag Facebook la yiraahdo kuwan way kuwa u baahan in shaqada laga qabto xukuumaddu ay ka soo saarto sharci baarlamaanku ansixiyo ma isku raacno ma isla qaadanay waa isku raacna waryaara iskumaan ma maqasheen wasiirkii masiibooyinka wasaaradda masiibooyinku inuu la wareegay oo ay guddoomeen mucaawinooyin cusub iyo gargaar cusub oo dawladda federaalka ah beesha caalamka iyo dalalka aan saaxiibada nahay ay ku soo taakuleeyeen isla markaana uu la wareegay oo wasiirku uu la wareegay ma maqasheen waayo 2011 Soomaali ma la tagi karo us iyo Rajab Tayyip Erdogan lamadooda ay yimideen lamadooda ninba maalintoo aan soo dhaweynay waa xasuusta majaacada ama dhibaatada ama awaara hadda shalay diyaaradii lamaada soo degtay maxay wadaa ma kasay container kiim hal ah teendhooyinkii oo markii dadka bini'aadamka roob ku soo da'ay minin camalkii loo dhisnay teendhooyin maal dhaha isma og ay teendhooyin kaasaa la keenay kii oo iyo maradii oo dhilmaayada laga galay mara dhilmaayo mara kaneeco oo kisaysiin mara dhilmaayas keeni mara dhilmaayo mara dhilmaayo haddana waxaa yimideen walaalahayna khaldar ii kan mucaawin waxay keeneen diyaar weyn arboorka dhan iyada lay qabsatiyaan ku leeyahay meelay dhameed haddii arki lahayd tan maxay wadaan waa isma maxaa ku jiray mucaawinaa la keenay shalay mucaawin oo meelay dhantay yaawaysid
oo gargaar leh wasiirka gargaarka imaareynta iyo musiibooyinka wadaadka la dhahay waa la jooga guddiga oo ra'iisul wasaaraha magacaabay dhammaantood shalay ilkaa ka guddoomeen warheedhe marakaneeca iyo teendhe iyo dad nabadaha u baahane dadku gaajaa hayso waxay cunaan bay rabaane ma waan dadkan leedin waxbay wadeen wax la cuna aysan wadin ilaa maalinkii dadka cunada iyo bariiska iyo wax walba ay socdaan dadka calooshooda la ilaaliyo gaajo laga ilaaliyo haraad laga ilaaliyo waxay cunaan looma keenin miyaa teeda kale toole hal meel unbaa wax lagu wadaaye wadankana masiibooyin badan baa ka dhacay ma waan dhinacaan kale iyo jubbooyinka iyo koonfur galbeed ee xataa waxbaa laga sheegaye ayada dhinacaas wax ma la geeyo wax ma loo qaaday walba ma oshiidiina sidda yuuradood oo maawinaad wadda yaway ka shaldageena bardaala iyo baardheer iyo buurdhuuba koonfur galbeed iyo way waa jubbaland wafdina la jara oo haqiimayo khasaaradii meelifka ku dhiidi reed saasan la socda yaa diray wafdigana dawladda dirti dawladda